بسم الله الرحمن الرحيم كنت وانا وناسن داودياشا qiimaha ay qadarta mudan ku soo dhawaada barnaamijkii socdaalka dunida oo xilligan kala laga barteen inaad ka daawataan TV-ga qaranka magaalada Muqdisho. Toddobaad waliba waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkayga socdaalka waxyaabaha ugu doorka badan, waxyaabaha ugu xiisaha badan, waxyaabaha aanu leenahay daawadayaashina waa ay danaynayaan. Haddaba su'aasha isweydiinta waxa weeye toddobaadkan muxuu inoo hayaa Yacquub waa barnaamijkeen socdaalka waxaan ku soo qaadan lahaa wallahi ilmo nin lagu magacaabo Jeshurun Vincent oo u dhashay waddankaas Malaysia ayaa waxa uu socdaal ku soo maray 96 dal oo dunida ka mid ah waxaana uu sitaa ninkaasi kabanka lagu garaaco muusika waa nin muslima isla markaana yimid Soomaaliya isla markaana la kulmay wariyahayna gaarka ah ee barnaamijka socdaalka محمد نور معلم waxaan uu ka wareystay waxyaabo fara badan oo ku saabsan socodkiisa uu qaaradda Afrika ku yimid dunida qaybaheeda kale ujeedada ka dambaysa haddaba ninkaasi waxa uu sidaa fariin ku saabsan isdhexgalka bulshada sida ay muhiim u tahay laba in laga shaqeeyo nabadda waxa kale oo haddana si dheer wax lagu magacaabo depression dadku isla hadla dadka bofiska qaada dadka niyadda ka kaca waxyaabo fara badan ayuu fariin ugu gudbinayaa ninkaasi lagu magacaabo Jeshurun Vincent daawadayaal ku dheeraan faalada filmka ku soo dhawaada barnaamijkii oo inoo qaada dhigayaal Ustaad Maxamed Nuur Macallin oo waraysigaasi inoo qaaday. Thank you so much sir. It's a privilege to be here. aad ayaad u mahadsantihiin sharaf ayay ii tahay inaan halkan joogo waxaan jecelahay inaan idiin mahadceliyo waxaan imid Muqdisho shalay waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dawladda Soomaaliya oo i siisay sumcadan aan halkan ku joogo oo aan joogo telefishinka qaranka oo aan idinla joogo iyo qof walba oo ka mid ah shaqaalaha iyo maamulka dabcan mudane Fanax oo ka shaqeeyay sida ay suurtagal ku noqotay inaan halkan imaado mahadcelin weyn oo xaggayga idinkaga imaanaysa oo qof walba idinka mid ah mudane. Of course to Mr. Fala who actually made it possible to be here sir. So it's a big thank you from me to all of you sir. Okay, how did it start? sidee ku bilowday inaad ku soo gaarto magaalada Muqdisho sideed ula soo xiriirtay ayaad la hadashay intaad iman magaalada Muqdisho ka hor. So I actually contacted the consulate of Somalia in Jeddah. xaqiiqa ahaantii waxaan la xiriiray qunsuliyadda Soomaaliya ee Jeddah markii ugu horeysay waxay igu yiraahdeen suuragal ma aha laakiin markii dambe waxay arkeen waxa aan anigu qabanayo in ay tahay waxii soo jiitay waxaana ay igu yiraahdeen waxaan doonaynaa in Soomaaliya ay noqoto dalka ugu horeeya ee ka mid ah dalalka aad tagayso sababtana waxa ay tahay waxa aad qabanaysaa ayaa ah wax wanaagsan sidaa darteed markii aan halkaas joogay waxaan la xiriiray Mr. Mursal oo howlahaasi iga caawinayay waxaana uu igu sii xiray dad kale waxaana ay arintaas qofka kale ayay igu sii xiraysay markii dambana Mr. Fanax ayaa ii yimid waxaana uu isagu ka shaqeeyay inaan halkan ee telefishinka qaranka SNTV aan imaado oo dhammaantiin aan idinla jooga halkan. Just like a puzzle, connecting a puzzle, everyone else was just connected and then Mr. Fala came in and then and here my SNTV with everyone all. Can you please explain and share with us? ma noo sharxi kartaa oo ma la wadaagi kartaa daawadayaasha wixii kugu dhacay noloshaadii hore wax ma nooga sheegi kartaa naftaada ka hor intaadan noqon musician? Yeah, sure. So schools in Malaysia ha xaqiiqadii gudaha dalka Malaysia waxaa laga ciyaaraa muusigada noocan waa nooc ka mid ah noocyada heesaha la duubo oo aynu ciyaarno xilligaasi waxaan jiray 10 sano waxaana ay ahayd in aynu baranno qalabka muusigada ama instrumentaha waa in aad akhrisaa oo aad barataa isla markaana hees aad qaadaa sidaa daraadeed waxaan ciyaari jiray muusigada si xun macalinkayguna gacanta intuu i qabto ayuu faraha ii toosiyo ayuu sidan oo kale ii hagaajin jiray waxaana aan garaaci jiray muusigada waxay ahayd arrin aad u xanuun badan waqtigaasi soo maray oo aan 10 jirka ahaa laakiin
maalin ayaan ka cararay galaaskaygii waxaana si weyn ii taabatay xilligaasi heeso aan maqlay noloshayda intii ugu horreysay heeso wanaagsanna ahaa sidaa darteed waxa aan jiray 10 sano waxa aan tagay aqalkaygii ayaan qabtay waxa aan qaatay qalabka instrumentaha ah amaba gitaarka waa aan ciyaari kari waayay si tartiib ah ayaan isku dayay inaan heesaha u tumo muddo 2 saacadood ah waxaan awood u yeeshay inaan sidaas sameeyo hooyaday ayaa ii sheegtay in music kale oo iskoolka ah ay tahay inaan qaado oo aan iska dhigdhigo laakiin hogaamiyaha ama macalinka muusigada ayaa ii sheegay inaan anigu aad u da'yarahay isla markaana aan 10 jir ahay sidaa daraadeed wuxuu ii sheegay in maalin uu iigu yeeri doono si uu ii baro muusigada 4 sano ayaa ka soo wareegatay macalinkii ayaa ii yeeray waxaana uu ii sheegay inuu i barayo muusigada sidaa daraadeed waa fiican tahay ayaan ku iri aad ayaan u farxay dareenkaygana wax weyn ayaa iska bedelay codka muusigada waxa aan awood u yeeshay inaan garaaco ama la ibaro aaladda la yiraahdo bass gitaarka gabi ahaantiisba wuu iqarinayay marka aan garabka gashtana sida qori weyn anoo sidoo ayay dadka u ahayd waa ana ay forjeen jireen dadku waxay dhihi jireen jay shurin adigu ma waxaad ku ciyaaraysaa gitaarka mise gitaarka ayaa kugu ciyaaraya dadku inta ay hoos ii fiiriyaan ayay shactaro iga samaysan jireen sababtana waxa ay taasi dhalisay walbahaar rajo la'aan iyo qalbi jab uu igu dhaco waxa kale oo ay ahayd aan doonayay inaan u muujiyo inay iyagu qaldan yihiin oo aan anigu leeyahay kartida iyo geesinimada aan ku qaadi karo instrumentaha isla markaana aan ku baraatikeyn karo allama haddii 2 sano kadib markii ay ka soo wareegatay waxaan awood u yeeshay inaan dib u ciyaaro instrumentaha taana waxa ay ahayd halka ay ka bilaabatay nolosheedii hore ee muusigada xaqiiq ahaan yeah, that was my early life of my music. Exactly. By God's grace, that was the way you started your air life. What changed your life? How the depression started and how you use it, your hearing. maxaa bedelay noloshaada sidee buu kugu bilowday walbahaarka iyo rajabeelka sideese ku daaweysay So this I can say this is the turning point in my life actually because when I was 19 years old one day without any symptoms nothing waxaan dhihi karaa tani waa halka ay ka bilaabatay nolosheeda xaqiiq ahaan waxa aan jiray 19 sano maalin ayaan ku fikiray oo aan dareemay calaamado marka aan ka soo toosay hurdada waxaan waayay maqalka ma lahayn wax maqal ah oo qayb ka mid ah xubinteedii ayaan waayay dadku waxa ay weydiiyeen waxa igu dhacay toddobaadkii ugu horreeyay awood uma aanan lahayn inaan ka kaco sariirta oo waan sare joogsan waayay sababtana waxa ahayd waxa aan waayay xubin aad muhiim u ah oo ay qaadanaysay waqti dheer in dib loo dheelitiro markay halkaas joogto waan fahmi kari waayay waxa ku dhacay nolosheeda si dhaqso leh ayay isu bedeshay si dhaqso leh hal habeen ayaan u waayay xubinta maqalka su'aalo badan ayaan weydiinayay waxa ku dhacay nolosheeda markay halkaas joogto dadka lagu waday inay dhiirigeliyaan ayaa ii imaan jiray iyaga oo ileh ma wax baad samaysay alla ayaa ku ciqaabaya dhammaan waxyaabo noocan ah oo aniga hoos ii dhigayay hase ahaatee si tartiib ah waxaa ii gaaray walbahaar nolosheeda ay gashay iyo murugo tusaale waxa aan fiiriyaa dadka horteeda joogo waxaan la kulmayaa saaxiibo qof walbana waqti ayaa la qaadanayaa laakiin marka la eego qalbigayga gudihiisa wax kale ayaa ku jira isuma arko inaan anigu ahay qof caadi ah kadib waxa aan bilaabay in aan la kulmo dareen dhibaatooyin iyo mashaakilaad oo walbahaarku ka mid yahay moral jabka waxa aan dareemayaa inaan anigu ahay qof wanaagsan oo u wanaagsan sida iyaga ay u wanaagsan yihiin waxaan bilaabay in dhammaan si tartiib ah arrimahaasi ay u noqdaan kuwo aniga ii sheegaya inaan ahayn qof xaaladiisa caafimaad ee wanaagsan tahay walbahaarka iyo niyadjabka si tartiib ah ayay nolosheedii ugu sii kordhayeen markii halkaas joogto 2 sano ayaa ka soo wareegatay waxaan
aniga oo aan cidna u sheegin waxaan garwaaqsaday in waxaan ay waqti dheer sii qaadan doonin oo depressionku ama walbahaarku uu yahay wax laga adkaan karo sidaa daraaddeedna dadka inta ay nool yihiin bini'aadanku uu wax la kulmayo isla markaana uu ka guulaysan karo sidaa darteed waxa aan bilaabay in muusigadu aan dib ugu laabto isla markaana ay noqoto aalad aan isticmaalo xaqiiq ahaan dib ayaan ugu laabtay muusigadii inaan baraatikeeyo muusigaduna waxa ay noqotay mid ka mid ah waa alle mahadiye inaan awood u yeesho inaan dib uga adkaado oo aan ka guulaysto depressionka amaba walbahaarka. And music is one of the tools that I use. Actually, so I started getting back my music, practicing my music, and slowly because of one of these, by God's grace, I was slowly able to overcome this depression. Muusigaduna waxa ay noqotay mid ka mid ah waa alle mahadiye inaan awood u yeesho inaan dib uga adkaado oo aan ka guulaysto depressionka amaba walbahaarka iyo niyad jabka. And yeah, so that is how my life changed and how by God's grace I was able to overcome all this. waana sidaasi sida ay nolosheeda ku bilaabatay isbedelkii ku dhacay. Okay, thank you, Mr. Jay Sheeran is still with us, and the interview will continue with presenting some of his technical with inspiration and music. This is part of the program. So before we go to make the rings of your music with the guitar, with the beautiful guitar, so we want to ask you, why are you doing this? maxaad waxaan ku sameynaysaa sida inaad dibadda ugu soo dhuftid ood ka soo baxdo Malaysia. So why am I doing this? That's the question that everyone asks me now. What's the purpose and what do I get out of this? maxaan u sameynayaa waxani waa su'aasha uu qof walba hadda i weydiinayo oo ah maxay tahay sababta iyo waxa aan ka helayo sida aan sheegay markaan ka soo baxay rajabeelkii niyadjabkii dhaqsadiiba fikirkaygu wuxuu ahaa hal shay waxaa jira dad badan oo ila mid ah oo u cabanaya sidayda oo kale iyagoo qofna u sheegin sidee baan u keeni karaa isbedelka sidee baan u dhiirigelin karaa sidee baan iyaga wax ugu qaban karaa sidaa darteed waxaan garowsaday in aniga oo sita muusikada waxaan biloobay inaan u safro dal anigoo rajeynaya in dadka ay dhiirigelin doonto. dalkii ugu horreeyay wuxuu ahaa Myanmar waxaan bilaabay inaan u cayaaro muusikadan isla markaana aan la wadaago sheekadayda ma aanan ogeyn in aan helayo fursad kale oo aan ku tago dal kale marka dalka kale sidaan u tagayay 65 bilood gudahood oo ku dhow 5 sano iyo bar oo ay wax la jiraan Soomaaliya waa dalkii 97 oo aan imaado si aan ula wadaago fariinteyda in aan dhiirigeliyo rajada anigoo filayo in ay dhiirigelin doonto xaqiiq ahaan. Now in 65 months, almost 5 years plus, already Somalia is my 97th country of traveling to share my message of hope, hoping it will inspire someone actually. 65 bilood gudahood oo ku dhow 5 sano iyo bar oo ay wax la jiraan Soomaaliya waa dalkii 97 oo aan imaado si aan ula wadaago fariinteyda in aan dhiirigeliyo rajada anigoo filayo in ay dhiirigelin doonto xaqiiq ahaan. So why did you choose select? maxaad ku dooratay inaad timaado Soomaaliya maxaase kaaga muuqday miyay samaynaysaa soo kabasho ama horumar haddayse jirto horumar noocee ah ayaa dareenkaaga taabtay? Before you selected Somalia. So Somalia is one of the countries that I always heard of, and because this country is now, you see, in the process of actually recovering and. Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalka aan markasta maqli jiray oo horay u socda horumar sameynaysa soo kabanaysa kana soo baxaysa wixii horay ugu dhacay sidaa darteed sidee baan uga mid noqon karaa dadka isbedelka wax ka keena ama ka dhaliya horumarka dalkiina waxaan xaqiiqsaday marka aan la hadlay saraakiisha dawladda waxaan anigu sameynayo aad ayay u soo jiidatay maxaa yeelay waxaan wado fariinta dhiirigelinta ah waxay taabanaysay dad ha ahaadaan tiro yar
taasina waxa ay dhiirigelinaysaa isbeddel gudaha Soomaaliya sidaa darteed waa wax iigu riixay in aan imaado halkan anigoo filayo in fariinteydan aan idinla wadaago in ay taaban doonto qof ay sheeko sameynayso ama keeni doonto isbeddel waqti dheer ee la soo dhaafay waxaan maqli jiray Soomaaliya waxay u socotaa horumar weyn oo mustaqbalka ah yeah, in the long run, we will hear Somalia growing and progressing towards a greater prospect in the future. Soomaaliya waxay u socotaa horumar weyn oo mustaqbalka ah. Okay, who facilitates your travel? Because this need is a technical budget. yaa kaa taageera maxaa yeelay waxay u baahan yahay barnaamijkaanu dhaqaale xagga farsamada ah sida dhoofka garoomada inaad hotel hesho taxi aad ku socoto dhaqaalahaas yaa kaa taageera si aad hadafkan u gaarto to reach your objective. Okay, the last 5.5 years I was working in a company. Shanta sano ee la soo dhaafay waxaan u shaqaynayay shirkad dhaqaale sidaa darteed waxaan markaa safaradan sameynayo waxaan keydsan jiray lacag waxaan haysto waa wax aad u yar laakiin markii ay dadku i arkeen waxaan sameynayo dalalka kala duwan ee aan u safrayay dadku waxay bilaabeen inay i caawiyaan anigoo la wadaagayo cunnada dhaqanka in aan la seexdo tani waxa ay ii badbaadisay xoogaa dhaqaale markaan gaadiid u baahdo iyaga ayaa i qaadayay soo dhaweynta ay dadku ii muujiyeen waxay ii reebtay ama ii badbaadisay qiimihii iga bixi lahaa waxaa jiray wadamo aanan waxba iga bixin markaan tagay maxaa yeelay waxaa soo dhaweynayay dadka oo ila fulinayay ujeedka waxaan qoray buug dadka qaar ayaa gatay buug oo iibsanayay lacagta qaar halkaas ayaan ka helay waqtigii aan ku jiray safarka iyo hadalka wax kasta waxaa laygaga dhigay bilaash ama free waxaa jiray dad ay soo jiidatay kuwaasoo ii yimid iguna yiri waxaan ka caawinayaa tikitka kale si ay igu caawiyaan inaan hore u sii socdo ma aqaano sida aan horay ugu sii socon karo ilaa 97 alle ayaa iigu saaciday inaan tago Okay, Mr. Jay Shrin, this is Mr. Jay Shrin was asked in the SNTV studio presenting his experience through more than 90 countries. Today he is in Mogadishu. He's going to say his experience in healing the depression. Can you play No ciyaari kartaa music? Yep, sure. So I'm going to play my very own instrumental and these are some of the devices that I use when I travel. So these are some of the devices and I'm going to play a song. It's my own composition. Okay.
Exactly. This is a great music with a sound that could touch the heart of the audience, including me. You have changed it a lot. ma noo ciyaari could you kartaa please ama explain ma to noo us tumi that kartaa music fadlan ma noo sharaxi kartaa music aanan lahayn kelmado lagu laray ama hees ay u suuragelin karto in ay wax ka bedesho lana tacaasho walbahaarka iyo rajabeelka qofka change and fight against depression? So, as I said, one of the challenges I had when I traveled was language. sidaa darteed sidaan horey u sheegay waxaan la kulmay caqabado waqtigii safarka kuwaana waxay ahayn dhinaca luuqaadka oo qof walbaahi uusan ku hadli karin luuqadda ingiriisiga waxaa jiray dhibaatooyin xagga fahanka ah luuqadan gaarka ah sidaa daraaddeed waxaan garowsaday markii aynu qaadno hees dadku ma fahmi karaan waxaa jirta caqabad laakiin marka aynu ciyaarno music calaashaan musicadu waa luuqad caalami ah sidaa darteed dadku waxay bilaabeen inay dhegaystaan waa habka lagu daaweyn karo nafta xaqiiq ahaan waxa ay dhiirigelinaysaa iyadoo aan la haysin musicadu ayaa ah wax awood u leh inay keento isbeddel waana Know a little more about Somalia. Yes, definitely. Especially Mogadishu, the capital city. Thank you, Mr. Jay Shirin. Thank you so much for this opportunity to share my story here. Okay, thank you. waa hagaag waxaan filayaa daawadayaal in aad iyo aad ula dhacdeen barnaamijkii socdaalka oo aanu toddobaadkan ku soo qaadanay ninka lagu magacaabo Joshua Vincent oo waraysi la yeeshay Ustaad Maxamed Nuur Macalin Johannes aad baan idinkaga mahadcelinayaa daawadayaal muddadii gaabneed aad fadhideen oo aad daawanayseen barnaamijkan oo Yacquub idin soo tabiyey dhinaca kamerada waxaa gacan weyn iga siiyay Ustaad Saciid Shuryaako dhinaca editinka waa Ustaad Muuse tan iyo mar kaleeto barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono daawadayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo ammaan Allah iyo kulanti dambe oo xiiso leh